jaaliyada reer Awdal ayaa waxay garwaaqsadeen waajibaadka ka saaran inay u soo gurmadaan dadka walaalahooda ee ku nool gobolka Awdal ee abaaruhu dibadaabyada u geysteen waxa ayna u soo direen deeq wax ku ool ah oo ku soo beegantay waqti loo baahan deeqdan ayaa waxa lagu soo hagaajiyay mutadawiciin aamina waxa ayna ka koobnayd bariis saliid sonkor waxaana maanta loo qaybiyay in ka badan 100 qoys oo ku nool deegaanka Misinle oo ka tirsan degmada Boon deeqdan qaybinteeda waxa goobjoog ka ahaa Ali Maadi Faarax iyo Umar Meecad oo loo soo wakiishay waxayna iyagu oo faahfaahinaya meesha ay ka timiday iyo waxa ay ka kooban tahay iyo meesha ay ka qaybiyeen yiraahdeen dadkii abaaruhu ay saameeyeen ayaa dad walaalahooda oo muxsiniina waxay ugu soo deeqeen dadka walaalahooda ay abaaruhu tabaaleeyeen maanta waxaan halkan ku gaarsiinay deeqdan dad 100 qoys dhan dadkaasoo dadkii ay abaaruhu aad ku saameeyeen raashinka aad arkaysaan waxa soo diray inama walaalaheena inta kale daawanaysa media iyo fiidiyaha daawanaysa waxaan leenahay dadkan waa dadkii la ilaaway qorfaha ruuxantii dadka dawiyada uma inta badan wax la siiyaa laakiin waxa jira baahiyo fara badan oo ku dhex aasan buuraha dhexdooda oo u baahan in wax la gaarsiiyo imkaaniyaadka muddo u baahan tahay ruuxantii dhamaantii u baahan yihiin sidoo kale dadkii deeqdan qaybta u helay ayaa iyaguna ka mahadnaqay waxayna sheegeen gacan ilaahay wax ka dhigan bilaad wax u gaadh intiisa aad noo soo dirteen waan idinka mahad celinay weeyaan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa idinkana waad mahadsantihiin walaalaha ayaa barta naga soo caawiyeen Allah caawiyo caafimaadkana Allah idin daayo insha Allah ilaahay wax san khayr Allah inoo wada